warar dhacaya sheegayo in uu burburay heshiiskii dawladda iyo Axmed Madoobe ay ku galeen magaalada Dhuusamareeb 15 bishan oo ka dhiman 2 maalin ayaa lagu waday in heshiiska qodobadiisa lagu soo gabagabeeyo doodda qodobka ugu adag ee hirgelintiisa dadka ay sugayeen Axmed Madoobena uu ahaa qodob hadii la hirgeliyo uu kaga guuleystay dawladda ayaa ahaa in gedo mar kale Axmed Madoobe ay gacantiisa gasho maamul ahaan iyo ciidan ahaan laakiin dhicisoobay isgaabintiisii ka hadalka ficilka siyaasadda ee dalka ka dhacayna Axmed Madoobe uu uga aamusay yahay inuu hirgalo qodobkaasi sida xilka qaadista Xasan Cali Khayre khilaafka bilowgiisii waxa uu soo baxay banaankan uu yimid kadib markii Axmed uu diiday inay u safraan Muqdisho guddiga farsamada ee doorashooyinka ee uu magacaabay kaas oo shirkii Dhuusamareeb lagu ballamay in la dhiso dawladana dhismahoodii kadib ay Muqdisho ku martiqaaday laakiin Puntland iyo Jubbaland ay ku gacan saareen wafdi Jubbaland ka socda ayaa tagi doona magaalada Ceelwa kadibna u soo gudbi doona xerada Maayole waa sawir muujinaya in Jubbaland ay dib u bilaabi rabto ficilka iyo falcelinta khilaafka dawladda kala dhaxeeyo muujintiisa xal xiraaraha ugu adag ayaa ah suurtagalnimada Jubbaland loo wada dhan yahay goorta iyo goobta lagu arki doono